xasan maxamed yuusuf oo wariye rugcadaaya isla markaasna agaasimaha idaacadda raadiyo hargeysa ayaa waxa uu saab t v la wadaagay mid ka mid a dhacdooyin badan oo sulux iyo dad isku wad isla oo uu ku sifaysnaa marxuun xaaji cabdi xuseen yuusuf kaasoo maalintii shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa isla markaasna maanta lagu aasay deegaanka toon oo 13 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada hargeysa. xusuuso badan buu horta leeyahay laakiin aniga xusuusta igu yaabka badnayd ee ma garanaysaa aan taagnaa waxay ahayd 1990kii bishii saddexaad labadeedii ama saddexdeedii ayaa shir xaruntii ururka SNM markaasi balgubadle oo balgubadle ahayd ayaa waxaa baaqday shirweynihii caadiga ahaa ee lixaad oo loogu talagalay inuu bishii saddexaad kowdeedii furmo markaa muddo 15 cishaabaa dib loo dhigay shirweynahaas wuxuu furmay bishii saddexaad 15keedii ayuu furmay 1990kii markaa waxaa jiray in waxoogaa khilaafi ka taagnaa dhinaca ergooyinka iyo maxaan ku dhahdaay waxoogaa muran iyo oo siyaasiya baa jiray xaajiga ilaahay naxariisanaa ka waraabiyo xaaji cabdi iyo ninkii loon jiray sheekhii loon jiray sheekh ibraahim oo gudoomiyaha guurtida ahaa ayaa waxay dadkii ka codsadeen inay geed halkaas la isugu baxo oo la tago geedkaas oo laga wada hadlo deeto markii geedkii la isugu soo baxay ayaa xaaji cabdi hadlay dadkuna aad bay u dhageysanayeen dadka meesha jooga waa dadkii ergada shir ka qayb gal lahayd qiyaastii 300 iyo siyaado qof way noqonayeen deeto wuxuu ka sheekeeyay taariikh aan dadku ogeyn oo cajiib ah taariikhdaas waxay ahayd masjaamaca weyn ee hargeysa masjaamaca weyn markii la dhameeyay ee la dhisay ayaa wuxuu waxaanu isu nimooday reer hargeysa waxaanu waryaynu uga dhignay imaam waxaanu isla garanay in imaam looga dhigo ilaahay u naxariistay sheekh cabdiraxmaan kaariye oo imaam ka ahaa masjaamacii hore ee imka xeraalo dhowdhow ayaanu isla garanay wuxuu markaanu arrinkii sidaa u dhignay subaxii dambe galabtii dambe ayaa qoliyaha hargeysa dega qolo ka midna soo weerartay wuxuu qolada ciidan gale ayaana soo weerartay oo warde ma qolada Saacad Musuun baan la tukinayay ilaa iyo xilliga ay maanaga magaranay maxaa naga noo jiiday wuxuu wardeetana waanu dejinay waa balistajiya markaan arrinka halku maray waxa hor kacay buu in la oran jiray sheekh loon jiray sheekh Farax Wadaaji sheekh Farax Wadaaji oo isaguna culimadii reer Asar kamid ahaa dabadeeto waxaan ku nuluuriyeen waa balistajiyo dib aanu isugu noqonay buu odayaashii waxaanu isla garanay in sheekh Cabdiraxmaan Kaari masjaamaciisi hore ku noqdo sheekh Farax Wadaajina uu masjaamacan weyn ee cusub oo isaguna imaam oo ka noqdo laakiin iidaha labada iidood iyo jimcayaasha sheekh Cabdiraxmaan Kaari uu masjaamaca weyn tukiyo caadi sidii markaanu ku go'aaminay ayaa wuxuu yiri qoladii arab maalintii dambe iyaguna weerar nagu soo kiciyay oo ilaadan muxuu ahaayeen waa maxay salaadan ciida galay iyo Saacad Musuun qaybsaday ma aqbalayno waxa waxaanu arkay yeelayna ma jirto waxaanu ku nilguuri war maxaynu yeelaayo waxaan soo gareeyay in muadinka la siiyo imaamka waxa la yahay sheekh eedaam iyo muadinkii war muadinka qaataan ku istaajiyay idinkuna oo idinka wuxuu qoladaana markii aanu sidaa ku dirnay khaarijinay baa maalintii dambe qoladii Isxaaq dafna soo jiray oo ilaa war masakataliiraha iyagiyo meeshayd baa loo tashaday waa maxay waxana wada cidba soo gelimaysa meesha ato waxaan ku nugul waa shaydaanka iska naaro bilistijiyo oo wuxuu lidatana sheekh loonin jiray in la liiqabe ayaan u dhiibnay buu mafaatiixda masaajidka loo liibaan loo bal adigu maamulo meeshaba ka ahaw oo sheekh meeshaba maamulaya ahaw sidii baan wuxuu ku kala dejin ilaa imanka hargeysa markii laga soo qaxayay buu leeyahay aynu soo baxayn 1988 buu jeeda wuxuu horta masjaamacu saas u qaybsana dadkiina halkan taagan ee ergooyinka ku heshiin horta kuwii salaada ilaahay ku heshiin waayay baad markii hore kuwii salaada ilaahay ku kala bixi waayay ee ku heshiin waayay baad oo maanta wax dawlad u eegidey dhex yaalo marka wuxuu soo jeediyay fikrad ah
inay maanta weligay cid maan habaarin buu yidhi laakiin saaka maanta aniga iyo sheekh ibraahim habaar iyo ducaannu mid bixinaynaa ciddii habaar doonaysaana xaggan ha u baxdo ciddii duca doonaysaana xaggan ha u baxdo ciddii doonaysa liibaan iyo duco xaggan ha u baxdo dee taayaday qaadanayaan ciddii kalena habaarkaanu haynaa maanta deeto dadkii dee ducadaanu doonaynaa baa layidhi sidii bay horta arrinkii khilaafkii ay ku soo gebagabeeyeen maalintii waxyaabaha ugu cajiibka badan ee aan ku xasuusto ayay ka mid tahay maxamed xasan daacad saab t v